والبميل هباس بدني وخوضا ريشي لدني هبوني مهو يلاق على كتير رقحيل هاوتوميني هنودي يود على حيلو لما يستير كارنا تطمي قبل كنوغو قبل كستي قبل كفافن هاد كسودا دالي نوغا وياد دندورا نيكا سودا دالي لغونا حلك لغو دالي دين لغو هبيا تحيا دوها أجوران من دورت وفرصة حفلتان وحا اسكالي ولكن شالو حفلتان وحفلت اون كو اوغيسينينا ولالهن وجارنا لدقن ان لولانكا غفانا نمدا عن كجرنا وجار waxaa loo degan yahay qabiilo badan annaga haddii ciddii ajuuraan aan nahay wax badan walaalaheen kala waan soo dhisnay kwanza tulijenga gavana wa kwanza kutoka West Ahmed Jir tena tukajenga mzee Mohamed Abdi kutoka East pamoja na Tarbaj. Sasa sisi tunasema hata wearer the incumbent tumemsupport. Sasa sisi tunataka Mheshimiwa Jir akuje atulipie deni kwa ndugu yetu Shalom. Vile vile Mohamed Abdi pia yeye akuje atulipie deni kwa ndugu yetu Shalom. Sidawa ya deni ni kulipa. Sasa this is a great day. It's a historic day for the Ajuran family. This is not merely a lounge, but this is the path to the realization of this dream. And come 2022, we are in the front line and we will come a united front. We'll as well be ready to welcome any other party who is ready to negotiate with us. We'll offer them the slots, we'll offer them the talks, and we'll be ready to debate. Orta waxaan iin sheegaa siyaasadda waxay u baahan tahay talo badan in la gorfeeyo. Annaga wax badan waxaan u malaynaa walaalaheen kale wax rabnay aan wax ku taageernay. waxaan iin sheegaa nin wadaadaha waxa la dhahay meel tuula uu ka ahay imaam. ninka suu imaam u ahay ayaa magaaladii ay isagii ay isfahmi waayeen. markuu isfahan darro dhacay ayaa masaajidka marka la iskugu imaaday ayaa waxa dhacday ninkii waxa lagu tashtay marka salaada lagu jiro walaalaalinta uu soo gaara in aamiinta laga reebto. ninkii marka salaada uu galay walaalaalin markuu yiri aamiintu waa waay. dhinacyuu iska heegay wuxuu arkay masaajidkuna waa xabrun yahay aamiintina ma lahaay. marka anaga wax badan aan aaminta raacinay waxaan rabnaa safartaan in aamintana la raaciyo kursigana la siiyo wabillahi tawfiiq.